أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن آدي آد السلام يا أصحابتك كحنا ولا شوت فرتوس ثاني. وحن لا يا أصحابتك عصوبتكم هالسنتين دا وشدينا أصحابته هرنا حن لا هاي إذا كنا هنا قاعد سنة أصحابته أركي دونتا كليب كنا حكا عصنا وسبسكرايب لايك لي شير كومنت عافي ما قبا انتو بوحين نويه ندير هجلين إن shaqo kastaana dhiirigelinta kama maarato kamana soo hadho marka intaasi waxay noo yihiin dhiirigelin maanta insha Allah biidmillah waxaan ka hadli doonaa laba arrimood oo khatar inagu ah. labada arrimood ee khatarta isdul saaran labadaba waxaan aad baan uga hadli doonaa waana wacyigelin barnaamijkeeni wacyigelinta wax kale ku saaciday malaha maanta insha Allah biidmillah waxaa dhacday sida aad ku maqlaysaan baraha bulshada intiinay maqashay intiinay aan maqlina waxa weeyaan qisadan sidan ayaabay u dhacaysaa. waxa jirta hooyo ku nool cariga Ingiriiska waxay ahaayeen hooyo iyo aabo intuba waxay raadin jireen waqti daruuri. waa qisada ilaa shalay ilaa daraad bay dhacday. gabadha ayaa ka sheekaynaysa ay qisadu ku dhacday. gabadhaasi waxay samaysaa marka ay shaqada aadayso inta aanay shaqada aadin ilmaheeda waxa u yeedhataa nin islaameed oo aan la garanaynin wuxuu yahay. way garanaysaa aqoon way u lahayd laakiin way aamintay. qofku aaminayna waa qofku dhaariyay waa qof kitaab gacanta ku saaray. way aamintay waxay ku aamintay wixii adduunkeeda ugu qaarsanaa oo ah awlaadeedii. dhaliish hooyo saari mayno ilaahayna inaguma keeno inaga iyo intaynu ka naxnaba ilaahay kuma keeno. inta qarsanaysa ee soo bandhigina ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigooda bogooda burcadu mariyo. ha iga hadho qurbaha cid laguma kufsado. waxaan oran jiray dadka markay leeyihiin halka sharci baa yaala wada sharci horumar yaala. America waxay ahayd meeshii ugu kufsiga badnayd ayay ahayd. marka dadkii aaminsanaa qurbaha waxba kama dhacaano inta waxaad arkaysaan imanka inay ka dhibaato badan tahay qurbuhu Afrika waa wadan aan sharci lahayn. Afrika waa wadan aan sharci lahayn. Afrika waa caynkan Afrika ka cayn. haddaba meelaha sharciyada aan lahaydeen uu leeyahay waxaasa ka dhacayay wax ka daranba laakiin digniin baynu bixinaynaa. waxay ahayd hooyo iyo aabe ilmo yar oo ilaa 6 jir 5 jir meelahaas ayay dhaleen. waa 6 jir da'da u dhaxaysa 6 jir ilaa 7 jir. inanta yar waxay dhigan jirtay iskoolka hooyada iyo aabe waxay ku degdegi jireen waxay ahayd inay shaqo aadaan oo qutul daruuriga soo raadiyaan. hooyada iyo aabahaas iyagu shaqadoodii cararaan waxa u yeedhan nin dhaweeye ah oo ay iskaranayaan oo ama qaraabaha hadan ama aqoon kala hawlahaadaan nin aqooni ay ugu yeedhaan. waxay yiraahdeen waxa aad samaysaa dhaweeyo iskuulka taxigaas waxa aad noo samaysaa nooge inanta yar iskoolka. iyagu waxa la rabaa in ay 7 shaqada galaan. inanta yarna waxa laga rabaa iskoolka inay tagto 8 subaxnimo. hooyadu waxa u yeedhaan ninkaas waxay tiraahdaa iskoolka ha iska sii joogto eege iskoolka. ninkii markuu qaada ilanta yareed uu macmiishay uu faraxumeeyay inta aanu iskoolka geyn maalin walba wuxuu ku sii sameeyaa maskaxiin buu u dila uu faraxumeeyaa. markuu faraxumeeyo inanta yareed mar allaale markay kadinka iskoolka ka soo gasho way ilmaysaa way ooydaa. hooyadani dhug iyo waxba uma laha ilmahan waa wax dhuga oo sidaasa uma laha. inantii yareed markii iskoolkii ay aaday ilmaysay macallimadii iskoolku waxa ay damacday xaaladan haysata bal in ay ogaato oo ay daba gasho. inantii yareed markay nacnacay iyo chocolate macmacaana u soo iibisay ee qolal cilla ay la tagtay waxay u sheegtay maalin kastaba marka aan iskoolka inta aan la keenin in la faraxumeeyo ninka taksiga soo qaaday ee dhaweeyaha ah. hooyadii baa loo yeedhay iyadoo shaqo ku jirta way soo carartay iskoolkii bay timi. waxaa farta ka saartay macallimadii oo tiri sheekadan ma ogta inantaada yar siday tahay. marba su'aalay weydiisaa su'aalihii oo ay weydiisaa. hooyadu waxay tiri waxa aan leeyahay alla maru neefsato oo ay sheegto maxay su'aalaha kaaga badinaysaa. intii baaba qalbigii iyo wadnihii iyo miisaan ka sii dhacay. aduu calaaya kulli xaal ilmihii yaraa sidaasaa lagu ogaaday muddo markii la farxumeynayay. hooyadeed baana soo hadashay oo baraha bulshada soo dhigtay. haddaba waxa aan leenahay hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxa ay ku tahay dhaawac. ana wax dhalo hooyo dhaawac bay ku tahay. hooyooyin kale oo badan dhaawac bay ku tahay. hooyooyinka commentiga soo qoray dhaawac bay ku tahay. kuwa arkay oo dhanna dhaawac ayaa bay ku tahay.
haddaba waxa aan leeyahay ilmahaaga cidnaba ha ku aamine, cidna ha ku aamine. ilaahay tala saaro, dhag u yeelo. hadday xilligii ay ku iman jireen ama lagu keeni jiray ay dib uga yara dhacaan, carar adigu soo eeg. ilmaha markaad geysanaysa adigu geyso. ilmahaaga la saaxiib oo guriga ha kusoo hurto waxyaabaha ay guriga kusoo hiranaya ha sameeyo, sida macmacaan yar, hadal yaroo macaan la sheekayso. ilmihii dhug ha loo lahaado, waayo waxaa badatay dhibtii, waxaa batay dadkii ilaahay ka cabsanayay way geeriyoodeen, waa tageen. wax yar baa soo hadhay oo codkoodii laga batay. waayo marka dadka wanaagsan ay dadkii xumaan ka bataan dee way qarsoomayaan. intii yarada wanaagsanaana way qarsoomeen, intii wanaagsanaydee badnaada waxay ku jiraan ilaahay baa qaatay. waa dunyada dhibaatadeeda iyo walwalkeeda iyo xumaanteeda iyo fusqeeda ka kaxaystay. marka waxaan leeyahay jahannami waxay u baahan tahay waa dad. marka ha noqonin dadka ay u baahan tahay dadka lagu gurayo jahannaba. taasi waa taa. waxaan leeyahay bal ilaahay haynaga ilaaliye waynaan ilmaha dhug u yeelanaa. ilmuhu wuxuu diidayo, hadduu iskoolka nacayo waynaad ogaataa iskoolka muxuu ku nacaya. hadduu dugsiga nacayo waynaad ogaataa dugsiga muxuu ku nacaya. haddii guriga uu nacayo waxaad ogaataa guriga muxuu ku nacaya, muxuu guriga uga boodaya. haddii nin xun iimaalo oo aan ilaahay ka cabsanaynin guriga u dhex fadhiyo oo ilmihii yaraha gardaamaynayo ama uu xumaynayo ama uu farax xumaynayo ama uu dhibaataynayo waynaad guriga lexdiisa ogaataa. marka waa inaad ilmihiina hantidiinni weeyaan aad hantidiina bahalaysataa. taasi waa taa. qodobka labaadaan ka hadlayaa waxay tahay khaniisiintii iyo raggii xumaanta samaynayay oo la dhiirigelinayo. hadda waxaynu arki jirnay, waayo ninkan ma garanaysaa fusuqa samaynaya ee xumaanta samaynaya ee waxa xun samaynaya ee matalan ilaahay suuraddii uu u sameeyey qawaday ee naagta doorbiday isagoo nin boqolla ilaahay ka dhigay haddana haba qawada suuraddii iyo bahashii iyo dhibaatadii sidii naag ahaan u bahalaynaya inta raggii sharafta lahaa giimamka intay la soo karaan. waxaan arkayay maalin dhaweyto oo la Sheekh Siciid Raagay oo inantiisa yar la kaaftamayso, rag baa saa ugu dhaganaayo dhinacyada haystay iyo dumarba. eega way cayday. ana qaar baan ugu qoray commentiga ingiriisi al-abaadir way isla dhaafnay adeere cidina cayna meesha ma jirtay. waa gabadh iyo sheekh aabaheedoo kaftamaya waa Sheekh Siciid Raagay. taas waa taa. dadkii Sheekh Siciid Raagay inantiisa ku dhaganaayo nimankan khaniisiinta ah ee inta lasoo live-ka lasoo koriyo waxay doonaan ku sameynaya nin boqolla oo kala ku leeyahay nin baa ku jecel ee dhiirigelinaya ee xumaantii faafinaya ee waxaan ku la rabo dhammaan qoomkii reer dadkii Soomaaliyeed oo dhan, raggii Soomaaliyeed oo dhan inay noqdaan dad xun oo khaniisiin ah lagu dhiirigelinayo. maad ka qabataan kuwa intaad Sheekh Siciid Raagay inantiisiyo kaftamaya aad ku dhagantihiin. maalin dhow waxaan arkayay live dhan oo intaasoo kun oo qof daawanayso oo ninkii khaniiska ha loo gadaayo wax loo gadaayo lacag loogu daraayo oo la dhiirigelinayo oo loo qoslayo oo lala ciyaarayo oo la baashirayo. waayo maxaa ninka isagaba ilaahay suuradiisii qawaday ee qoomuluud ku biiray sida aad u raali gelisaa maxay tahay? dadka wanaagsan baaba lagu leeyahay raali gelinay ilaahay raali geliye. nin khaniisoo qoomuluud noqday oo wadadii ilaahay saxda ahaa ka baydhay sababta aad u dhiirigelinaysaa ee aad xumaanta ugu dhiirigelinaysaa maxay tahay? anigu waan yaabaye. waxaan joognaa adduunyo wanaagiina la aasay, xumaantiina taaj cad loo saaro la taashay oo la boqray ayaabaynu joognaa. ilaahay waxa aanu weydiisanaynaa fusuqa iyo xumaanta socota annaga iyo awlaadayada iyo inta muslimka aminu ilaahay ka ilaaliyo. wallahi maanta waan xanuunsanayay. fiidiyowyadaasi way i dhibeen inaan ka hadlaan jeclaystay. waxaan ku ilaa shalay alxamdulillah rabbil caalamiin caajiska iska badnaa. maanta waxa aan door biday oo aan jeclaystay oo aan u soo kacay bal in aan waxaa ka hadlo. war goormuu qoomuluud qoomkeenii noqday? war goormuu qoomuluud inaga ina noqday? war qoomuluud goormaynu qosalnay? war qoomuluud goormaynu lacagta ugu darnay? isagoo qoomuluud ahaa
sababtan aynu lacagta ugu kordhinayn ugu darnay maxay tahay ma waxaa rabtaan jiilkeena dambe inay wada lafti inaga qaataan ee qoomuluud ku biiraan oo xisbiga noqdaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu xisbiga adduunkan waa laba xisbi waa xisbullah iyo xisbu shaydaan ala inna xisbu shaydaani humul khaasiruun kuwa qasaaray ilaahay inagama dhigo waxaan idinkaga tegayaa waxaa xun dhogta u lahaada waxa wanaagsanba waad eryataane bal waxa xunna indha u lahaada oo jawaab haddaad xumaanta waa kii xadiiskii rasuulku ahaa haddaad gacanta ku suulin karto gacan ku suuli haddaad afka ku suulin karto afka ku suuli haddaad qalbiga ka nici kartidna qalbiga ka nac waa halka ugu hooseysa iimaanka ma garateen marka haddaanad ninkan ka suulin karaynin wuxuu uu samaynayo ciyaartan aad la ciyaaraysaad ignore garayn lahayd oo aad lahayn lahayd inagu isku dhaqan manihin kulamana ciyaarayo intaa maxaad odhan weydaad u raali gelinaysaa waxaan idinkaga tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu